بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد إن شاء الله waxaan bilaabeynaa buugga sayniska fasalka koowaad ee dugsiga hoose insha Allah dugsiga hoose inta aan ku guda jirno waxaan ku barneynaa oo fasalka koowaad sayniska maadada sayniska ama cilmiga sayniska 10 cutub ayaan ku barneynaa duulaan insha Allah oo buuggiisa koowaad cutubka koowaad waxaan ku barneynaa waxbarashada caafimaadka oo afka qalaad loo yaqaano health education. Cutubka labaad waxaan ku barneynaa noole iyo ma noole oo noole loo yaqaano living iyo ma noolena oo loo yaqaano non living. Cutubka saddexaad waxaan ku barneynaa animal cutubka saddexaad waxaan ku barneynaa xayawaanka iyo dhirta oo afka qalaad loo yaqaano animals and plants. Xayawaan waxaa loo yaqaanaa animal, dhirna waxaa loo yaqaanaa plant. Cutubka oo afaraad biyaha ayaan ku barneynaa oo afka qalaadna waxaa loo yaqaano water. Cutubka shanaad waxaan ku barneynaa cuntada, afka qalaadna waxaa loo yaqaanaa food. Cutubka lixaad waxaan ku barneynaa carrada, afka qalaadna waxaa loo yaqaanaa soil. Cutubka toddobaad waxaan ku barneynaa illeyska, afka qalaadna waxaa loo yaqaanaa light ama sunlight. Light marka waxaa isaa kala qaybsamaya marka lightska ama light. Lights markaan dhahayno waxaa waaye ileysyo, light markaan dhahayno waxaa waaye ileys. Cutubka sideedaad jabaqda ayaan ku barneynaa oo loo yaqaano marka afka qalaad sun. Cutubka sagaalaad waxaan ku barneynaa cimilo gooreed ayaan ku barneynaa. Cutubka tobanaadna hawada oo ayaa loo yaqaano cimilo gooreed waxaa weather oo okay. Marka cutub ayaan qaadanaynaa. Cutubkiisa koowaad waxbarashada caafimaadka. Buuggeena wuxuu ku bilaabay marka waxqabad. Casharkiisa koowaad waa qaybaha jirka ayaan ku barneynaa, waxqabad ayuuna ku bilaabay. Waxaan magacaabayaa marka qaybaha jirkeyga ama jirkeena uu ka kooban yahay. Jirka wuxuu kooban yahay tin, dheg, il, san, af, gacan, faro, lug, cag. Timo ama tin afka qalaad waxaa loo yaqaanaa tin ama timo. Timo markaan dhahayna waa timo badan waaye. Tin markaan dhahayna waa hal tin aan ka hadlaynaa. Tin afka qalaad waxaa loo yaqaanaa hair, hairs. Hair markaan dhahayna waxaa waaye hal tin aan ka hadlaynaa. Hairs markaan dhahayna waxaa waaye timo badan ayaan ka hadlaynaa. Dheg markaan dhahayna waxaa hal dheg aan ka hadlaynaa. Dhego markaan dhahayna dhego badan aan ka hadlaynaa marka laba dheg iyo wixii ka badan. Dheg afka qalaad waxaa loo yaqaanaa marka ear. Dhega markaan dhahayna waa ears waxaa waaye sa ayaan raacinaynaa. Il waa hal il waaye sidii filaarta ka muuqataba. Ilo markaan dhahayna waxaa waaye ama indho waa jamac waaye marka indho badan laga hadlayaa. Il afka qalaad waxaa loo yaqaanaa marka eye. Eyesna waxaa waaye indho waaye marka saa la raaciyo waa jamac waaye. Sun waa hal sun laga hadlayaa sun.
Okay, sanus waa afka qalaad. Af jirka waxaa hal af leedahay, waa sanka waa hal le waay. Afkan waa hal qofka hal af le ku yaala, laba af kuma yaalo. Marka san waxaa nus aa loo yaqaan afka qalaad, afna waxaa waaye mouth. Sida waxaa waaye aad ka aragtaan ariiqmada. Okay. Gacan waa hal gacan laga hadlooyaa. Qof bini'aadamka laba gacan ayuu leeyahay. Waa afka qalaadna waxaa loo yaqaanaa arm. Markii jamac laga dhigaa arms. Faro. Qofka bini'aadamka farihiisa waa badan yihiin marka. Far markii la dhahana waa hal far waaye. Finger aa leeyahay markii faran la phalanges. Phalanges. Lug waa qof bini'aadamka laba lug ayuu leeyahay. Leg aa leeyahay markii hal lug ay tahay. Markii dhowr lug laba lug ay tahay maxaa legs ma wixii ka badanba. Jamac waxaa waaye s al raaciyaa. Lug waa leg. Cagta iyadana waxaa waaye afka qalaad waxaa loo yaqaanaa feet. Laba cag ayay leedahay marka oo loo yaqaano marka feetis markii laba cag. Okay. wax qabadka labaad waxaan magacaabeynaa xubnaha jirka ee sawirkan ama sawiradan ka muuqda. Okay. Qaybta koowaad kan marka waxaa loo yaqaanaa il. Midaan waxaa loo yaqaanaa af, dheg, carab, lug, gacan, san. Okay, inshallah buugagtiin ayaa ku soo qoranaysa duulada inshallah. Okay. Waxqabadkiisa saddexaad waxaan tilmaameynaa qaybta waxaan magacaabeynaa xubinta la tilmaamay. Xubin baa la tilmaamay soomaan. Hadee qaybtan waa la tilmaamay. Qaybtan waa la tilmaamay. Waxaa loo yaqaan marka dheg. Qaybtaani waa la tilmaamay iyadana waa san. Waa farta lagu tilmaamo soomaan. Qaybtan maxaa waaye iyadana waa la tilmaamay. Maxaa loo yaqaanaa iyadana tin. Waxaa loo yaqaanaa tin. Qaybtana afwan. Tirtirno. Qaybtaana waa la tilmaamay soomaan. Qaybtan waa la tilmaamay san il waa il afwan. Qaybta ka muuqata. Okay. Okay. Waxqabadka oo afaraad marka dhowr waxqabad ayuu leeyahay ilaa 10ka saddexaad. 10ka labaad ayaan ku ekeenayna inshallah inta ku ekeenayna. Halkan waxqabadkan afaraad akhrinayna. Waxqabadka afaraad waxa aan magacaabayaa qeybaha jirkeyga ee la tilmaamay. Qeybahan waxaa la tilmaamay buuggaada ku soo qoraysa duulada inshallah. Qeybahan la tilmaamay oo fleerta. Qaybtan fleerta koowaad waxaa loo yaqaanaa okay tin. Qaybtan fleertana ka muuqatan maxaa loo yaqaanaa il. Qaybtan fleertana waxaa loo yaqaanaa dheg. Qaybtan fleert maxaa loo yaqaanaa san. Qaybtan fleert maxaa loo yaqaanaa af. Okay. Qaybtan waxaa loo yaqaanaa gacan. Okay. Qaybtan maxaa loo yaqaanaa phalanges. Qaybtan maxaa loo yaqaanaa afwan waa gadaal aan ugu laaban mar labaad.
mar labaad aan boobsiyaa u maleehaa. Okay, kadaalaan u laabato. Qaybtan maxaa loo yaqaanaa? Maxaa loo yaqaanaa tin. Okay, qaybtan filaartan maxaa loo yaqaanaa? Il. Okay, filaartan maxaa loo yaqaanaa? Dheg. Filaartan maxaa loo yaqaanaa? San. Filaartan maxaa loo yaqaanaa? Af. Filaartan maxaa loo yaqaanaa? Gacan. Filaartan maxaa loo yaqaanaa? Faro. Filaartan maxaa loo yaqaanaa? Lug. Filaartan maxaa loo yaqaanaa? Cag. Okay, halkan ayaa ku ekeenaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.